dugsiga sare aadan bile ee ku yaala degmada xariirad ee gobolka Selel ayaa waxaa gacanta ku haya qurba joogta ka soo jeeda gobolka Selel ee ku nool daafaha caalamka. qurba joogtaasi oo dugsiga ka fulisay adeegyo muhiim ah oo dugsigaasi u baahnaa, waxaana xusid mudan xayndaabka baaxadda weyn ee dugsigaasi horay loogu yagleelay. haddaba maanta oo ay 21 November tahay, waxaa xadhiga laga jaray adeegga tamarta cadceedda ee loo yaqaan solarka oo qurba joogtu ka hirgelisay dugsigan sare ee aadan bile ee ku yaala degmada xariirad. waxaana daafurka adeegan korontada ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada xariirad Faysal Xaashir Rayaale iyo Professor Maxamed Faarax Xareed oo kamid ah qurba joogta u ololeysay isla markaana qayb libaax ka geystay in dugsigan laga hirgeliyo adeegga korontada. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay injineer Barkad Xasan Xaddi oo kamid ah injineerada degmada xariirad aadka looga yaqaano, iyo maamulaha dugsiga sare aadan bile Maxamed Tukaale Soobane iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Selel Cawaale, kuwaas oo dhammaantood u mahadnaqay qurba joogta ka soo fulisay adeegan aadka loogu baahnaa isla markaana u yagleeshay dadkooga iyo deegaankooga adeegan tamarta cadceedda. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Daahir Axmed oo ah mulkiilaha shirkadda hirgelisay tamarta cadceedda ee ay qurba joogta u soo wakiilatay inuu dugsigan ka hirgeliyo tamarta cadceedda, isla markaana ah ganacsade u dhashay gobolka Selel, ayaa goobtaasi ka hadlay kana sheekeeyay waxtarka iyo faa'iidada uu leeyahay adeegan solarku. على محمد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. أنت كبعدي كل أنا هذا الكيجو لبقى ضبهم بان كل قاضي تكوبات باهدي كانتي solar kan iyo faa'iidada uu leeyahay iyo in dadkii alaabtan muxsiniinta ahaa ee gacan ka soo geystay aan mahad celiyo. baahida alaabtan keentay haddii aan ku horeeyo iyo faa'iidada uu leeyahay. awal hore dugsiga sare ee aadan bile oo ku yaala degmada xariirad uu ka soo fog yahay magaalada. light triga ay magaaladu isticmaashana ma soo gaaray. taasi waxay keenaysay in macallimiintu waxa ay daabacanayaan ay ku kalifto inay magaalada u doontaan iyagoo mashiinadii iyo kombiyuutarradii haysta maadaama uu leeyahay. laakiin iminka macallinku isagoo xiisadiisa ka soo baxay iyo iskuulka dhexdiisii ku daabacanaya wixii uu assignment ardayda u diyaarinayay, haddii uu imtixaan diyaarinayo, wixii ay ardaydu roganayaan ay wixii oo dhan iminka waxa laga helaya iskuulka dhexdiisii. waa faa'iidada soo kordhiyay. ta kale xagga amniga iskuulka habeenkii mugdi waxa uu faa'iidada labaad ee uu leeyahayna habeenkii waa meel iftiimaysa oo qurux badan. alaabta meesha taalana tayadeeda kulay waa arkaysiin xayndaab bay leedahay. insha Allah waana wax muddo badan laga faa'iideysan doono si aan rajaynayno iskuulka wax badan u taray. waxa kale oo sidoo kale laga taxadiray awal hore systemkii markii ay iskuulka jinkadu ka qaaday uu ka baxay meesha, laakiin systemkan imika waxa uu kaga gadisan yahay waa wax oolaya oo caaqibo oo haddii ay xitaa iskuulka ilaahay naguma keenay dhibaato ku imato oo wax la sii isticmaali karay. taasi waa intaa iyo faa'iidadiisa. waxaan qodobka labaad ku soo ururinayaa maadaama aan gudoomiyaha degmada ah in dadkii hawsha gacan naga siiyay meel kastoo ay caalamka ka joogaan markuu $50 ku darsaday iyo in badan ku darsadayba dadkii jeebkooda ka soo bixiyay aan uga mahad celino. ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. codsi baan raacinayaa. iskuulku imika waa arkaysiin gudaha iskuulka labada qole ay maamulku isticmaalaan iyo macallimiintu iyo kombiyuutarradii iyo adeegii kaliba ugu dhex yaallaa. marka waxa halka ay neego muuqanaysa inuu iskuulku u baahan yahay qol kale oo IT-gii loo isticmaalo kombiyuutarradii ardayda loo dhigo maadaama uu light-ki jiro. waa codsiga koobaad insha Allah aan isleenahay bal gacan laga soo geysto. iyo talabaad ah library iskuulku ma library dugsi sarana lab iyo library kama maarsamo. marka in laba qol ama saddex qol oo loo kala isticmaalo lab iyo library iyo farsamada in lagu soo kordhiyo insha Allah taana waan codsanaynaa. assalaamu calaykum. system solarkii oo sidii loo baahnaa oo loo sameeyay oo nus qameynay oo qaybtii baytariyada iyo qalabkii saacadaha iyo wixii kale midna waxa ku dhex jira guriga dhexdiisa
halkan waxaa taalla 7 solar oo u qaybsanta 4 u xidhan oo dabka sameynaysa qaybta korontada sida maxaa dhahdaa kombiyuutarada ama maxaa dhahdaa koobiga iyo wixii la mid ah kale waxa weeyaan halka 3 kalena waxa uu dabka dugsiga u shaqeynaysaa sida lambada tirigaanta marwaxadaha iyo wixii kale ee la halmaala qalabkoogii kala baytariyadii saacadii nidaamkiina halka ku jira takala hadii la waxaan ku sidana halka hoostana qalabkii qaabkan u dhignay iyo dabka si loo isticmaalayna gudaha ay ka tusuna insha Allah hadii la dhigeen maanta halkan waxaanu xariga ka jaraynaa solarkii dugsiga sare ee aadan bile loo sameeyay laba qodob ayaan oranayaa ka koobaad waxa aanu mahad celinayaa qurba joogta tolkaya ee qaaradaha adduunka ku kala sugan dhowrka mashruuc ka fulisay deegaanada ay ka soo jeedaan uu ka koow yahay aasaaskii dugsiga sare ee aadan bile ee sugista mushaarka macallimiinta deyrkan oo hadda aad aragtaan kulli kamaradu inuu qaban doonaayo oo isaguna aad loogu diirsaday iyo dugsiga Sandalool ee hadda aynu ka wadno gobolka City maanta xarig jarkan waa kii saddexaad ee laga hirgeliyo dugsiga bilaa mushaarka deyrka iyo solarka mahadnaq kaliya laaba baan u jeedinayaa qurba joogta qaaraanka ay soo ururiyaan ku suurtagelaya masaariicda gaar ahaan ka maanta codsina waa ku darayaa oo ka gudoomiyaha degmada xariirada ee uu soo jeediyay baanana taakiidinaya waa ogtihiin oo waxbarashadu kaliya ma aha macallin arday 10 siiya waxa waxbarashadu tayo yeelataa marka ardaygu macallin fiican helo buugii wuxuu ka akhrisanayay helo maantana casriga cusub uu helo teknolojiyadii iyo kombiyuutar uu aqoon wixii adduunka laga helayo internetka uu ku biirsado marka waxaan anigu codsigaas aan taakiidayo qurba joogta tolkaya waxaan u soo jeedinayaa in ay sida ugu dhaqsaha badan leh isku abaabulaan u soo qaadhaamaan si iskuulkan loogu biiriyo hal fasal oo loo dhigo kombiyuutaro iyo kuraastiisii iyo miisaskiisii waa kow laba hal fasal oo library oo buugtii ardaydu aqoonta fasalka ay ku kaban lahayd ay ka helaan saddex xafiiska maamulaha iyo macallimiintu waa xafiis yaroo kooban macallimiintu iyo ardaydu waxaa laga maarmaana inay joogto u kulmaan oo ardaygii mushkilad tacliimeed haysato in loo kabo casharkii wax laga dhaadhiciyo rabaa inuu macallinka arki karo macallinkana hadduu qol yaroo kooban 5 macallin maamulihii fadhiyaan way adag tahay oo ardaydu markay dayar tahay qaangaadhka yimaado u xishoodaan waxaan soo jeedin lahaana hal maqsin oo ballaaran oo ku filan macallimiinta inay qololba u samaystaan sidan maxaan dibadda aad aragtay baasha lagu kala sitaaro ay u samaystaan saddexdaas waa qol library qol IT iyo xafiis lagu kordhiyo waa tolkayo 3 mitir dhan walba u ah waxaan u aragtay inuu dhameystiran yahay alaabtii loogu talagalay waa lagu xireeyay saas uu ka yahay waan u jeedin salaamu calaykum hadli marka koobaad noo soo geliyay xaaladda hadda aan dah furaynaa inay noo timaado marka labaadna waxaa mahad iska leh qurba joogtii deegaanka ka soo jeeday tolkahay ee suura gelisay inay ayagna hawshan gacan ka geystaan fikir iyo male iyo jeeb ay ka geystaan baa mahad iska leh ayagna waxa kale oo maanta aad u mahad ugu faraxsanahay professor Maxamed Faarax Xareed oo ah isagna asaasii dugsiga oo ka soo qayb galaya furitaankan solar systemka iyo aaladan qodobka kale waxa weeyaan mid waa codsi midna waa mahadnaqaasi sida uu gudoomiyihii iyo professor kuba isku soo carab taabteen baahidaasi waa ma jirta mar haddii la helay korontadii oo solarkii dhalinayo kombiyuutaradii isticmaalkoodii goobta lagu isticmaali lahaa oo bannaan
marka insha Allah waxaan ka codsanaynaa dhammaan qurba joogtaas deegaanka soo jeeda ee tolkeena ee gacanta mugtale ka geysatay inay codsiyadaas ay soo jeedinayaan ay ku daba daraan waa qolka ICT-ga library-ga iyo laabka laba saddexda qolba insha Allah inay ka qayb qaataan aan aad u mahadnaqayaan ku soo jeedinaya oo kala codsanaya anagoo ah wasaaradahan wasaaradda waxbarashada Somaliland cid kasta oo gacan ka geysata dugsiyada aasaasiga iyo kuwa gaarka intaba horta waan soo dhaweynaa mahad gaar ah u jeedinayaa ciddii haddii deer tahay haddii solar systemka tahay iyo baahidii kale ay jirtaba ka jawaabaysana mahad gaar ayaan u jeedinaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ka wasaaradahan wasaaradda waxbarashada Somaliland kulli Somaliland waa loogiyo wadan la aqoonsan aqoonsi marka uu kooban yahay hadday tahay dhakhtarada hadday tahay iskuullada inta badan qurba joog ama ay tol isku tagayba waxay ka qaban karaan ka qabto diileedina maqashada maraya tagaasanadii sidii tirjiri gaariga beedka dibaan ka soo qabtay la isdaawan maaye labada beed bal sax oo dhig isticmaal ya dabka alla shidooy go iyo la isdaawan maaye dabka waa la shidaya dad wasa sax wala saxadi sida saxi waxa weeye la isdaawan maaye dabka waa la shidaya ya intaasi kadib Maxamed Faarax Xareed ayaa galay galaasyo kamid ah dugsiga sare isagoo ogaanaya awoodda aqooneed ee ardaydaasi leeyihiin isla markaana weydiiyay su'aalo gaar ah oo ku ogaanayo heerka waxbarasho ee ardayda dugsiga sare ee aadan bilaa ay taagan yihiin guntiga gabagabadiina dhammaan ka soo qaybgalayaashii daafurkaasi solarka ee laga hirgeliyay dugsiga sare ee aadan bilaa ayaa waxay ambaliyo iyo duco hawada u mariyeen dhammaanba qurba joogta soo hirgeliyay adeegan iyagoona uga mahad celiyay waxqabadka ballaaran ee ay dadkooda la garab joogaan waa Cabdi Majiid Ibrahim Muumin warbaahinta gobolka Salel degmada Xariirad